halkan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada meel kasta oo adduunka aad ku nooshihiin. halkan ayaan inaan idinla wadaaga rabaa aragti ka timid shacabka Soomaaliyeed, aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo way aragga Soomaaliyeed. arrintii markaas dalkeena Soomaaliya oo qaatay national caalami public parliament caalami inuu dalkeena leeyahay, fikradahaasna ay ka yimideen aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo way aragga Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka timid, taas oo marti lamaad siyaasad ahaan aan aga guuleysano khaliijul carab ayagoo markaas noo adeegsanayaan hanti fara badan. marka waxaan rabaa istiraatiiji dhow iyo ku dheer in aynan wadan haddii uu boqortooyo yahay inuuna maal gashanin Soomaaliya. fikradda aan aniga sida aan qabo iyo shacabka Soomaaliyeed qaarkood inta badanba inta ay qabaan, maadaama aad ogtihiin khaliijul carab in ay khadar oo khaliijul carab kamida inay hal mar dadkoodii iyo dalkoodii ay gumaadeen, balse ay khadar ay si qoto dheer istiraatiiji dhow iyo ku dheerba ay aga fikireen. dalkeena Soomaaliya waxaa la rabaa marka inuu intaasoo kale iyo kasii daran inuu fikiro, maadaama public parliament caalamiya aqoonyahanada Soomaaliyeed, way aragga Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed ay kulli irdaha ay u balaqan yihiin. taasna waa markii labaad ee khaliijul carab ee naga hantida badan, naga quwadda badan ee aga guuleysana national caalamiya siyaasadda. insha Allah ta'ala marka istiraatiiji dhow iyo ku dheer in ay dalkeena ay ka fikiraan. markii xigtana xiriirka soo jireenka oo khaliijul carab in la ilaaliyo iyadoo la qoslayo markaas, maadaama ay aqoonyahankooda ay iska dilaan halkii xataa boqortooyadii ugu dhoweed ay ka soo baxo ay iska gumaadaan. taasne marka dadkaas waa isku ceeboobeynaa siyaasad ahaan islama jaan qaadi karno, laakiin waxaan u malayhayaa inay ayaka ay xiriirkii soo jireenka ay hadlayayaan, laakiin Soomaaliya siyaasadeeda intaas way kasii gun dheer tahay in ay si fiican ay u qaada dhigaan, markaasna ay fiiriyaan markaas siyaasad ahaan ay xiriirka soo jireenka ay ilaaliyaan. haddii ay xumeeyaanna markaas annaka dalkeena waxna hoos u dhigi maayo, waxna naga xumey maayo. waa kaasa intaas ayaan idinla wadaagi lahay. marka ku xigtana waxaan u diri lahay labadii gole ee baarlamaanka ee ka turjuntay shacabka Soomaaliyeed in aad ku yeela doontiin taariikh ee geyga Soomaalida insha Allah ta'ala. baarlamaanka hadda jira ee 2018 ee markii ugu horeysay ka turjumay laba mar baan dhahe laba mar ee shacabka Soomaaliyeed amba saddex mar ay ugu dareed ay si toos ay u metreen. markii dambana markii ku xigtana ay hufnaan ay ku dhameeyaan dib u heshiisiinta dalka ee federaaleenta aad ayay u fiican tahay haddii loo adeegsado dagaalku ma jiro. federaaleenta dalkii oo dhisan, horumarkii oo la siyaasadaynin iyo markaas miiska wada hadalka lagu wada hadlaa ee markaasna si fiican loo dhirindhiriyo. aqoonyahanada Soomaaliyeed ee markaas ila wadaageen fikradahan iyo shacabka Soomaaliyeed aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa meel kastoo adduunka aad ku nooshihiin. magacaygu waa Cumar Maxamed Nuur. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.